kuwa isla waa sii jiraysaa ay adkaysanaya waxaan leeyahay war ma jirayso waa aragtaan shalay wixii ka dhacay golaha waarkiisan qori baa lagu ansixinay memberkii maxaa loo jeeday riyooli riyaraac ila riyaraac waarkiisan wasiir bukaaha ololiibu ku jiray masaajidadii kuwii dibay weeyaan dawladda islaamka dimin iyagoo obargaraysan weeyaan islaamba laguma sheegi karo islaamba laguma sheegi karo markaan yar ku soo noqdo odayaasha anigoo raali gelinaya waxaan ku dhahay ku jira maxaan ku dhahay faytinka ku jira maxaa laga filayaa waxa uu doonayaa baa laga filayaa masabix dhammaanba kuwa gudaha iyo kuwa dibadda joogaba waxaan leeyahay hawlaheenni waa diyaar garaysnaynaa intaana waxaynu ku sugaynaa hawlaheenni diyaarsanaynaa iyo qalabkeena ciidankeena iyo dhamaystirka qorshaha dagaal ninka ragga gudubtiisa uu iska doontaa odaygani kursiga ku soo fadhiyo maayo intay la gaarayso ilaahu waqtigiisa ka dhamaado waa aragtaan marka xagga sharciyada loo leexdo yaa sharciga jabinayo horta soo in la isweydiiyo ma constitutionkii dalkume maalin boqod baa jaba ma isaga waxa uu ibaaxaynaya waxa xalaaleynaya ee ummadda Soomaaliland oo diidaya maxay yihiin waxay yihiin waa maxay qofku yaanu waxba arki weeyay qofku inuu xarko waynu dulmiga arko qofku waynu sheego inta saaka kaga tagaya ilmaadaray saddexdii ilaa ka tagaya wuxuu yiri qofku hadduu taariikhdiisa la hayo inuu dadka dardaara maaha ragga Abdullah Yusuf saliid ku dagaalamay way Bukhari iyo kale yaa awal faatax saliid baa ku dagaalamay Abdullah Yusuf anaga aqrinayni inay dalka ka baxaan oo nooc kale ugu shaqeeyaan way maaha noocaas nooca maaha iyaga oo sabtana hadii aan qayaho isaga xaggaasay ka xigaan waan inoo xabad hadii aan la yiraahdo waxa ka shanbalin odagan aanu anagu ka dhignay reerka isjibaarka xaaji tamin laay keenay wadanka xaaji jaamac tamin laay inuu reerkayaga ahaado waa diiday wuxuu yahay uu noqon doonaa hadii alla yahay kaafraad waxaan leeyahay la helay geerida ka dhacday tacsiibaan ka direeyaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa dhiman jiray raggu waana dhimanayaa habiil iyo qaabil baystilay hal lagu soo dabaalo nabad meydka hal la iska aasto ciidamada gacanta ku haya gacan ku dhiglaana waxaan leeyahay kusiba odayaashu haya aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa hawsha qabateen ma waxa u foogantiina dadkiina cadaalada la tuso dulmiga laga kaxayo ayaynu qoriga u sidanaa gacanta ku haya aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya arrinta qabateen waxaana loo diyaar garoobayaa dagaal baa loo diyaar garoobayaa kuwa buuhooda joogana waxaan leeyahay qorshihii aynu isku ogeyn boorkaynu ku afufeynaa in badan baa la sugaya hadalkayga qolada dibadda iyaga waxba odhan maayo ama hadsan yihiin iyaguna laakiin ragga gudaha ku jira aad iyo aad u diyaar garooban insha allah isku haysan mayno markaan yar ku soo noqdo odayaasha anigoo raali gelinaya kitaabkii iyo dhaartii aynu wada galnay tii ceelfoyn bay noqotay ayuun bay noqotay garabka u tigay odayaasha waxaan leeyahay alla diyaar garoobo dagaal loo diyaar garoobo ka fursan mayso waxaan uga fursanayn isagaaba u baahantay isagaaba doo baahan ma sii fadhii karo kursiga haddaan dagaal la sameyn wallahi la sii fadheen wax impeachment u qaadayaan ma jiraan oo wuxuu leeyahay cad qaligu soo darto siyaasi maanta dhaamo oo la oran karo meesha ka soo ridayaan ma jiro